مركز دار العلوم ومركز أونلاين أو تكبرين كرتيد قرآن كريم إيه علوم تيسا وحد كليت بران كرتا لغة عربية إيه ولبا علوم تا شريعة إسلام هذا بها هدي تهي دأول با هدي ميل والبا عالم كتشوكتد قاب أونلاين أيا وحلقوقو بريا معلمين كتخصصي علوم تاس دينيقة إيه قرآن كريم أيا كعاونية تليفون نمبر كان شاشة آيات كواركيسا كسودو مركز دار العلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما ولا لها قيمها إيه قدرين تمضن إيه كحنا channel كنا فاطمة منا channel خير إيه برواق بدن أيان إذين رجينا يميلو بودا فهدوني ذاك الشوكتان إيه حلو والبويدي سوكارو فيديو جن رونهانتي فيديو جني وقصة روتي قصل إيه اللياب بله قصة دني وحا أي كل عضي قيس سعودينا إن qoyskani waxa ka soo warisay qisada xaajiyada qoyska maamada reerka ayaa qisadan soo gudbisay qisadan hadaba waxa u dhacday sida tan waxay tiri aniga iyo zawjkayga iyo caruurtayda ayaa dalxiis ugu tagnay Suuriya waa intay Suuriya nabad ahayd ee dalxiis loogu bixi jiray Riyadh magaalada caasimada Saudi Arabia ee Riyadh ayaanu deganayn halkaasi ayaanu ka baxnay waxaanu qaadanay baabuur waxaanu safar dheer ayaanu galay waxaanu tagnay Suuriya inaanu ku dalxiisno oo aanu muddada caruuraha iskuulada u xidhan yihiin aanu maaragtay dalxiis iyo hawa gadis aanu ka dhigano ayaanu u tagnay run ahaantii halka markaanu tagnay waxaanu kiraysanay gurigaasi waxa deganaa caa'ilad Suuriyiina maaragtay ayaa guriga iska lahaa gurigu waxa uu ka koobnaa marka laba qaybood amba laba dabaq ayuu ka koobnaa dabaqa sare waxa deganaa markaasi in reerka guriga iska leh anagana waxay noo baneeyeen oo aanu ka kiraysanay waa dabaqa hoose laakiin kicho ayaa jirtay dabaqa hoose ku taala oo alaab qaar ay u taalay alaabta kichada sida weelasha oo kale dusuuda oo kale iyo waliba waxa yaalay quraarado maaragtay carabtu waxay cunaan wax la yiraahdo mukhallalku marka waa khudrad sida maaragtay qajaarka oo kale amba khiyaarka ayay yiraahdaan amba karootada adu khudrad noocaas oo waxa jirta biyo milix leh iyo toon iyo lindhanaan iyo waxaas khal la isku daro ayaa lagu ridaa markaas biyahaas lagu dhexradiyaa quraarada lagu xiraa marka cuntada marka la cunayo ayaa lagu barbar cunaa in basbaas akhtar ba xataa lagu ridaa oo maartay qaar ba yara kulul marka ujeedadu wax weeyaan mukhallalaadkoodii ayaa u yaalay meesha waxa kale ee kijada u taalay weelashii dusuudii waxyaabaha ay u baahnaayeen qaar ay halka kaga tageen kadibna marka ay u baahdaan alaabtaas waxa soo degi jirtay inan reerku dhaleen oo marka da'deedu 20 ilaa 22 sano jirtay inantaasi markay soo degto waxa ii iman jirtay aniga oo ah marka gabadhan Sacuudiyada ah ee meesha dalxiiska uga kireystay iyadii maaragtay aniga iyo qoyskaygu aanu meesha ka kireysanay in markay ii timaado waxay oran jirtay in waxaan u baahanahay habar yar in aan maaragtay amba walaalo in aan ka qaato dusuud amba wax noocaas amba alaabta noo taala kijada inaan qaato ayaan u baahanahay alaabtaasi markay u soo degto waxaan arki jiray odaygaygu inuu eegayo marka inantaasi in isaga oo marka inantaasi markay marka u soo degto alaabtan ay kijada ka qaadanayso waxay ugu oran jirtay walaalo waxaan u baahanahay shaygii nooca ahaa ee maartay kijada inaan alaab noocaas ka qaato marka way soo degi jirtay inantaasi bacdama bay ahayd inan aad u qurux badan dhalinyaro ah odaygayga ayaan arki jiray oo isha la si raacaya
runtii waan ka xanaaqay waxaanan kula taliyay in uu ilaahay ka baqo oo uu indhihiisa hoos u dhigo maaragtay oo uuna inanta indhaha la raacin oo arrinkaasi uu xaaraan yahay inuu xaaraan yahay ayaan xasuusiyey wuxuu igu yidhi waa runtaa waad saxsan tahay ilaahay hayga cafiyo waan hoos baan u dhigi doonaa indhaha dib ulama raaci doona inantaasi laakiin odaygaygu mar walbo inantaasi timaado sidaas ayuu u eegi jiray runtii waxa uu ahaa amba uu noqday qof aan naftiisaba xakamayn karahayn oo inantii intay cajabisay markasta marka ay meesha marayso indhaha la sii raaca ha yeeshee maalinkii dambe arrin aanan ka filanahayn ayuu iila yimi odaygaygu wuxuu igu yidhi waxa aan rabaa inantan in aan guursado haddaba ha odhanin iimaad sheegin waxaan rabaa inaan gabadhan guursado go-aankaasaan gaadhay reerkeedaan weydiisanayaa inanta waan u fadhiisanayaa waanan guursanayaa imikaba ogow waxay tiri waan naxay waan yaabay waxaan ku idhi warniyahow meesha inaynu dalxiis u nimaadno ayaynu maaragtay dalxiis baynu meesha u nimi inaynu dhowr cisho meesha joogno aynu ku dalxiisno dhowr maaragtay wiig amba bilo yar amba 2 bilood amba wax noocaasa marka meesha inaynu dalxiis u nimo caruurta inaguba meesha aynu ku faraxno ayaynu u nimi teeda kale maxaad aniga dalxiiska iiga xumaynaysaa ma inaan murugoodo ayaad rabtaa aniga oo dalxiis u soo baxay oo isle farxad ayaad kala kulmi doontaa dalxiiskaaga midda kale ma waxaad rabtaa inay dadku hadhowto marka aan ku noqono Sacuudiga dadkii inay yiraahdaan ay nagu caayaan maaragtay nagu dhaliilaan ninkani wuxuu la baxay hal xaas 2 xaas buu la soo noqday ma waxaad rabtaa in layna yiraahdo kadibna odagaygu wuxuu yiri maya walaalay waxaan ka bax dadka hadalkooda iyo dalxiiskan iyo waxaan ka bax anu gabadha waan guursanaya waan go'aansaday gabadha waan jeclaaday waan ka helay waxaan ku yiri waan guursanaya way dhamaatay halka markay arrinku uu marayo waxaan ku yiri odagayga waayahay hadii aad rabtid inaad guursatid gabadha oo ay ka go'an tahay hadaba ugu yaraan aan ka codsado inaad horta aniga Sacuudiga igu celisid iyo gurigaygii magaalada Riyadh aynu deganeyn horta gurigaygii igu celi markaad aniga igu celisid kadib soo baxo hadaad rabtid gabadha markaasi adigu u soo noqo oo guurso wuxuu yiri waaye sharadka waan ka ogolahay waa arrin macquula ina horta adiga iyo caruurtaada idin celiyo kadibna aan anigu u soo noqdo gabadhan oo aan guursado waa wax macquula waayahay baan saasaan ku ballanay marka waxaanu ku ballanay ilaa 3-4 cisho kadib inaanu noqono oo uu naceliyo halkii marka ballantayadu ay sida ay noqotay ayaa waxa uu sameeyay maalinkii dambe uu baxay gurigu ka baxay caruurtayda ayaan ku yiri dabada ku ciyaara marka meeshu waa meel beer ah oo jardiino amba beer maartay meel jardiino ma beer weeyaan marka beertaasi wax lagu maartay beero reerku waa reer beer falata ah marka meel beer weeyaan meeshu waxaan ku yiri caruurta marka meesha beerta ku ciyaara dabada ku ciyaara hooyo ciyaalkii markii dabadii u baxeen odayguna uu guriga ka yara baxay ayaa intaan qaatay qori weyn amba bud weyn aan qaatay ayaa waxa aan jajabiyay alaabtii dhameeyay meesha taalay waxyaabo badan oo sharaxaad ah oo waxyaabaha antiga ah ee maaragtay runtii yani qadiimiga ah ayaan jajabiyay meesha lagu sharaxay kajadii iyo khudradoodii quraaradaha ku jirtay ee ay ku dhanaaneenayeen biyaha milixda leh ayaan jajabiyay wixii oo dhan wax walba oo jabi karo amba dhooba ka samaysan ayaan jajabiyay markaan wixii oo dhan jajabiyay ayuu ninkayga soo noqday odaygii markuu soo noqday wuxuu yiri waa maxay guriga sidana maxaa dhacay markaasaan ku iri caruurtaada ayaa sida u jajabisay anu waan yara baxay waan yara lugeeyay waxaan isiri meesha beerta ku yara luge wuxuu baan u soo noqday gurigii caruurtaadu burka la dhaceen markaa de maxaynu yaalnaa xaaji wuu muraarad laacay ninkii wuxuu yiri hoo 10,000 oo riyaal weeyaan lacagta u gee reerka waxaad u sheegtaa inay nasaamaxaan oo inay cafiyaan kadibna waxa aad samaysaa raali gelin weydiiso oo waxa tiri caruurtiba sida samaysay raali ahaada lacagta 10,000 ee riyaalna gacanta ka saar dabcan muddo ka hor bay qisadani ahayd soo qiyaasan kartaan 10,000 oo riyaal lacag badan weeyaan waxa weeyaan 3,507 iyo 750 ayaa ah markaasi $1,000 soo lacagtani waa lacag 2,000 iyo googo ah ma garanaysaa marka waa lacag far badan oo maaragtay Suuriyana de lacag far badan bay ka ahayd marka waxa ay ku tiri waxay tiri qalbiga ayaan waxaan iska iri ma 10,000 oo dollar amba 10,000 oo riyaal baan ka wada ayaad rabtaa ina aan siiyo si 40 shay meesha aan ku jajabiyay ayaan qalbiga ka iri isug ana maaragtay farsamo kala haye
halkii baan ka cararay waxaan u tagay maamadii inanta dhashay ayaan u tagay yani xaafadan maaragtay hooyadoodii ayaan u tagay ahow maaragtay khalad ayaa meesha ka dhacay waxaa dhacday alaabtii gurigaaga ayaa la wada jajabiyey arrin baanan rabaa inaan kuu sheego arrintaas inaga uun haynaga dhaxayso odaygaygu wuu xanuunsanayaa maskaxda ayaa lagaga jiraa ma aha nin maaragtay maskaxiyan dabiiciya meeshan Suuriyana waxaan u keenayba odayga inuu ku nafiso oo uu ku caafimaado kadibna bacdamaaba uu yahay qof maskaxiyan maaragtay aan caafimaad qabin oo xanuun nafsiya qaba waxa uu sameeyay bur intuu qaaday ayuu gurigii oo dhan jajabiyey anigu intaan yara baxay ay caruurtu ayuun baan soo noqday kiyo gurigii oo dhan jajabiyey marka walaalay bacdamaaba uu qof xanuunsanaya yahay oo aniguna aan dalxiiskan dheer u keenay in uu bal nafsadiisu ay caafimaado oo de xanuunkan maskaxdu bal inuu ka dego laakiin qofku hadduu xanuunsanayo meel walba tago de xanuunkiisu wuu sitaayo xanuunku isaga uun ku dhex jira marka runtii waan idinka raali gelinayaa lacagtanina waa 1,000 riyaal oo aan maaragtay magdhow kuugu siinayo calashaan wixii uu jajabiyey odaygu marka isagana xanuunkiisa waanu ka qarinaa marka ha u sheegin oo ha kala hadlina nagana raali ahaada lacagtan aan ku siiyey ee 1,000 riyaalna ha u sheegin inaan 1,000 riyaal ku siiyey sababtoo ah odaygaygu wuu gacan adag yahay oo waa qof bakhayla bacdamaaba uu yahay qof gacan adag oo lacagta aad u ilaaliya haddii uu ogaado lacag inaan kaa siiyey maaragtay magdhow ah alaabtii uu jajabiyey wuu ka sii xanaaqayaa marka walaalay raali ahow arrinkaana ha la soo qaadin bismillah islaantii guriga joogtay way yaabtay oo waxay tiri guriga iska lahayd way yaabtay oo waxay tiri waaye walaalay dhibaato ma laha insha Allah waxba uma sheegayo dhibaato ma laha imikana waanu idinka tagaynaa bay tiri waxaan ku yiri bay tiri imikana waanu idinka tagaynaa dhowr cisho kadib baanu baxaynaa de sidaa iyo maaragtay raali ahaada waayahay ayay tiri xaajiyadii guriga iska lahayd 2-3 cisho kadib waabanu xidhxidhanay alaabtayadii waanu baxnay ninkii oo faraxsan oo isla waad soo noqon oo gabadhanaad guursan buu horta riyaad igeeyey riyaad iyo gurigaygii markii aan tagay ee way kaliya aanu joognay ayuu yiri haye heblaayo maalinkii dambe waa kanoo waan kugu soo celiyay gurigaagii dalxiiskiina waad soo dhamaysatay haddaba anigu ballanteeni ayaan oofinayaa waan tagayaa wadankii baan ku noqonayaa Suuriyan tagayaa gabadhii maaragtay reerkiina waan u sii yara maaragtay dul maray inaan inanta ka rabo imikana waan ku noqonayaa gabadhii baan soo guursanaya deedna waan soo kaxaysanaya waaye baan ku yiri ilaahay wixii khayrku ku jira ha ku waafajiyo xaaji waxba ma dareensiinin uu iska baxay meeshii buu tagay meeshii markuu tagay uu muddo maqnaa ayuu soo noqday markuu soo noqday kiyo muraarad lacsan war maxaa kugu dhacay gabadhii wala ii diiday oo maxaa lagu yiri waxay igu yiraahdeen naga raali ahow markii waanu ka xishoonaynay oo de qof martii oo nala jooga gurigayagii jooga ayaad ahayd laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan inantii waanu bixinay nin baa u yimi oo maaragtay inantii guursaday sababta aanu ugu guurinayna ninka waxa weeyaan ninkani wuxuu ahaa inaadeerkeed ruma ilaa yaraantoodiina waxay ahaayeen 2 qof oo isu doonan oo la isla rabay labada qoys isla rabeen marka inantii inaadeerkeed ruma oo isagu xaq u leh inuu guursado oo la siiyay isagoo ayagoo ciyaal la siiyay ayaa runtii guursaday marka niyahow sidaasaad nagaga raali ahaanaysaa dabadeetana ninkii muraarad lacsan baa soo noqday xaajiyada markaa qisadan ku dhacday ee soo gudbinaysa waxay leedahay aniga ayaa ah qofkii kasbay amba ka faa'iiday qisadan awalan 9,000 oo riyaal ayaan helay dalxiis ayaan helay odagaygiina gabadhaasi guurkeedii ayaa halkaasi kaga banjaray oo maaragtay xitaa cuqdad baabu ka qaaday inuu gabar kale ila guursado waabu yani sidii reerkaasi u diideenba wuxuu isleeyahay cid kale hadaabad maaragtay yaa intaad isku ceebayn lahayd xaaskaaga iska hayso marka runtii qisadani waa qisad yar oo qosala ha yeeshee cibra qaadashada ku jirta waxa weeyaan inna kaydahunna cadiim ilaahay subxaanahu watacaala quraanka wuxuu ku sheegay yani haweenku in ay xiiladoodu markay xiilada isticmaalaan xiiladoodu runtii inay xiilad dheer ay tahay oo maaragtay markaasi in kaydahunna kaydka dumarka iyo xiiladoodu runtii wax aad iyo aad u weyn inuu yahay
هيا qisadani halkaasi ayaan ku khatimayaa wixii fawaa'id ku jira idinka ayaa ka soo saari doonoon idin daayay waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah istawda'tukum allah alladhi la tadhi'u wadaa'i'u wasalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk مركز دار العلوم ومركز أونلاين وتكون برن كرتيد قرآن كريم كأه إيه علوم تيسا waxaad kaleed baran kartaa luqadda carabiga ah iyo weliba culumta shareecada islaamka haddaba haddii aad tahay da' walba haddii aad meel walba caalamka aad ka joogtid qaab online ah ayaa wax lagugu barayaa macallimiin ku takhasusay culumtaas diiniga ah iyo qur'aanka kariimka ayaa ku caawinaya telefoon nambarkana shaashada ayaad ku arkaysaa kusoo dhawow markas daar al-culuum